hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi ayaa la xaqiijiyay inuu dawladda Imaaraadka Carabta ee khilaafka siyaasadeed kala dhaxeeyo dawladda Soomaaliya uu ku qanciyay inay taageerto siyaasiyiinta mucaaradka beelaha Hawiye ee aadka uga soo horjeeda dawladda Soomaaliya. Muuse Biixi ayaa dawladda Imaaraadka Carabta u sheegay in guusha Soomaaliya ay tahay mid hoos u dhigi karta in garab loo muujiyo siyaasiyiinta mucaaradka beelaha Hawiye. sida uu qoray wargeyska Geeska Afrika ee ka soo baxa magaalada Hargeysa, hogaamiye Muuse Biixi oo ka duulaya caqabadaha maamulkiisa ka haysta dhanka dawladda Soomaaliya ayuu dhinacyo badan ka eegay sidii looga hortagi lahaa caqabadahaasi iyadoo loo marayo adeegsiga siyaasiyiinta ka soo horjeeda dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo. wargeyska Geeska oo xiganaya wargeyska caanka ee Indian Ocean ayaa sheegay in Muuse Biixi uu go'aankaasi qaatay kadib markii uu ka warhelay in dawladda Soomaaliya ay si toos ah isku garab taagtay maamulka Puntland oo dagaal kula jira Somaliland. sida uu qoray wargeysku, waxa uu qoray in Muuse Biixi uu magaalada Nairobi u diray mas'uuliyiin ka tirsan maamulkiisa kuwaasi oo toddobaadkii hore hotel ku yaala magaalada kulamo qarsoodi ah kula qaatay siyaasiyiin ka soo jeeda beelaha Hawiye oo ka soo horjeeda dawladda Soomaaliya iyadoo halka lagu dejiyay qorshayaal ku aadan is-hortaaga dawladda federaalka Soomaaliya. Muuse Biixi ayuu qoray wargeysku in dawladda Imaaraadka Carabta uu ku cadaadiyay maruu gaaray magaalada Abu Dhabi in si dhab ah loo taageero siyaasiyiinta Hawiye oo uu sheegay in xilligan ay aad u dhaliilsan yihiin dawladda Soomaaliya. hase ahaatee ma cadda in Imaaraadka uu aqbalay iyo in kale. qorshaha Muuse Biixi uu ka leeyahay in Imaaraadku dhaqaale ku bixiyo mucaaradka dawladda ayaa lagu sheegay in uu ka hortago taageero la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu siiyo maamulka Puntland iyo in dawladda laga mashquuliyo howlaha ka socda dekedda Berbera ee u dhaxaysa Somaliland iyo Imaaraadka Carabta. sidoo kale wargeysyadu waxa ay qoreen in dawladda Qatar ay madaxweyne Farmaajo ku cadaadisay inuu helo taageerada hogaamiyaha Puntland Cabdiweli Gaas maadaama ay xuduud wadaagaan Somaliland oo loo arko inay caqabad ku tahay dawladda Soomaaliya iyo Qatar. macadda waxa ka hirgalay kulamada magaalada Nairobi ku dhaxmaray mucaaradka dawladda Soomaaliya iyo mas'uuliyiinta ka socday Somaliland ee uu soo wakiishay Muuse Biixi. iyo waxa la gudboon dawladda Imaaraadka oo loo iifinayo dhinacyada ay ka jilicsan tahay dawladda Soomaaliya.